Maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay sheeko dhiirigelin ah oo ah in aad isdhiibin xilli kastaba. Marka la eego hannaanka siyaasadeed ee Soomaalidu, way adag tahay in dadka shaqooyinka hoose haya sida waardiyayaasha oo kale ay maqaam sare ka gaaraan siyaasadda, balse ma adka in qofku uu meel gaaro hamigiisa. Taariikh nololeedka iyo qaabka uu ka gaaray maqaamka siyaasadeed ee maanta uu joogo wasiirka warfaafinta Jamhuuriyadda Somalilan Sulaymaan Yuusuf Koore ayaa ka duwan sida ay dad badani u haystaan. Sulaymaan waxa uu sanadkii 1984 wuxuu waardiye ka ahaa xarunta raadiyo Hargeysa oo hadda ay ku taalo wasaaradda warfaafinta Somalilan. Wasiir Sulaymaan sanadkii 1984 da'diisu waxay ahayd 18 jir. Xaaladda nololeed ee uu xilligaas ku sugnaa ayuu sheegay inay aad u adkeyd, gaar ahaan dhanka cuntada. Waxa uu sheegay aroortii in la siin jiray hal rooti ah oo uu ku quraacdo, balse uu ku qanacsanaa maadaama xaaladda dalku ay sidaas ahayd. Wuxuu yidhi, habeenkii waxaan ahaa waardiye, aroortiina waxaan qaban jiray shaqooyinka kale haddii ay ahaan lahaydba macallinimo iyo wixii la diraba. Wasiir Sulaymaan mar uu BBC-da la hadlayay wuxuu sheegay in qoyskiisu ay deganaayeen miyiga. Marka uu shaqada qabto, bishii uu qaadan jiray lacag dhan 120,000 oo shilin. Lacagtaas oo uu sheegay in ay aad u yareyd oo ay u geyn jirtay dhaqdhaqaaqa, kirada iyo waxyaalaha la mid ah. Baryada ayuu sheegay inay xilligaas ceeb ahayd. Isagu wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo uu xaalad adag wax ku soo bartay. Wuxuu yidhi, xafiiska aan hadda ka shaqeeyo waagaas layma oggolayn sababtoo ah in aan ahaa waardiye. Shaqadan ayuu sheegay inay xasuus gaar ah ku leedahay. Wuxuu yidhi, waxaa muhiim ah inaanu qofku isdhiibin oo uu dadaalo in qofku bini'aadamka ahi uu shaqeeyo oo uu marxalad kasta la dabaasho. Dad badan iyo anigu waxay ii tahay guul, ama ay u arkaan inaan guul gaaray, inaan wasiir ka noqdo halkii aan waardiyaha ka ahaa. Hase yeeshee, heerkii uu nolosha ka soo maray Wasiir Sulaymaan ayaa ah mid dhiirigelin leh, maadaama ay adag tahay in qof wasiir ka noqdo albaabkii uu ilaalin jiray. Fadlan muuqaalkani hadduu ku qanciyay, la wadaag asxaabtaada, like, subscribe, share.